waxaa dhawaan la magacaabay gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyadoo loo magacaabay Axmed Cabdulaahi Xasan. Magacaabista gudoomiyaha cusub ayaa imaanaysa kadib markii muddo 3 sano ah ay ismarweysnaayeen ganacsatada waaweyn ee gobolka Banaadir kuwaasoo isku haystay cidda qabanaysa xilkaasi. Mas'uuliyiin sarsare oo ka mid ah dawladda federaalka ayaa isku dayay in ay khilaafkan xaliyaan waxaana ganacsatada ay ka codsadeen inay xal la yimaadaan booskan banaanna ay ku buuxiyaan hanaan ay heshiis ku yihiin. qaar ka mid ah ganacsatada Soomaalida oo la hadlay VOA ayaa noo xaqiijiyay in wax yar uun kadib markii dawladdu ka codsatay ganacsatadan inay booskan ku soo heshiiyaan in ay al-shabaab u yeereen dhinacyadii ishayay ee ganacsatada ahaa. inkastoo ay qaar ka mid ah ganacsatadu ka cudur daarteen qaar kalena ay wakiilo dirsadeen waxaa la isugu tegay meel ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose waxaana ay joogeen muddo 2 cisho ah iyagoo dood iyo wada hadal dheer kadibna sheegay in lagu wargeliyay inay aqbalaan in gudoomiyaha rugta ganacsiga loo magacaabo Axmed Cabdulaahi Xasan. inta badan ganacsatadii arrintan aanu kala hadalnay inkastoo ay xogo isku midana siiyeen oo aysan isku khilaafsanayn sida ay arrintu u dhacday haddana cabsi xad dhaaf oo dhinaca ammaankooda ay qabeen. mid ka mid ah ganacsatada oo sababo xagga ammaanka aynu magaciisa u qarinay isla markaana codkiisa aanu u doorinay ayaa inooga waramaya sida al-shabaab ay ugu soo qanciyeen ganacsatadu inay isku raacaan magacaabista gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir. hore ganacsatada kamid ah dacwatay duurkaas aaday shabaab ku dacwatay u bandhigtay dadkii caqabada meeshan ka jirta waxa ay weli ay ku andacoonayeen ku dacwoonayeen dhinaca dawladda kale ka xigtay in waxa waaye warkooda kaliya meeshan laga tixgelinayo ayuu ganacsatada waaweyned warkooda la maqleeyay shabaab dacwadii markii ay dhageysteen kadib qaadka arkeen ayaga waxay go'aansadeen in labadan qodob ay u leeriyaan in ayaga ay rabaan dushan ay ka saaraan labadii kale dacwoonaysay qolaba marba ay meesha kaleysay iyo qola diidaneed waxa ay ku qasbanaadeen saacadan in ayaga aan shaqo filaan in la yiraahdo inta magacaada aqoonsada waxa aqoonsato rugta ganacsiga gobolka Soomaaliya jambarkiina waa uu meel mariyay saacadan ninka waa gudoomiye xafladiisa lagu sameeyay macalimo saaray gobolka Banaadir ku magacaabay 17 bishii December ee sanadkii dhamaaday 2019 ayaa waxa uu gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed uu ku dhawaaqay inuu magacaabay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga Soomaaliyeed. Maxamuud Cabdikariin Gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaan weydiiyay waxa ka jira in al-shabaab ay u soo gudbiyeen gudoomiyaha uu dhawaan u magacaabay rugta ganacsiga gobolka Banaadir. Gudoomka rugta ganacsiga gobolka Banaadir aan dhismay oo ka kooban 6 qofood oo ah gudoomiye iyo 3 ku-xigeen iyo xoghaye guud iyo xubinka ganacsiga guud ah. mana aan waxa anagana la yeelay waxa muddo dheer 3 sano ayay banaanaa xilka gudoonka rugta ganacsiga gobolka Banaadir hadii sheekhu qeybta Allah una xariisto si uga dhintay ka dambeeyay xubnaha gobolka Banaadir ee jambarada gobolada matala ay ka banaanad xaaladaas muddo dheeran marka xoogaa culays ka jiray hadda waxaan moodaa marka inaan soo qaadno dhamaanteen gudoonka rugta ganacsiga in aan abuurno matalaadii rugta ganacsiga gobolka Banaadir oo ka kooban gudoonkaas mana jirto aan cid lagu barashar galaysay iyo cid lagu khasabtay si ku meel gaar ah 2 sano u magacaabnay kadibna waxay u gudbisay doorashadan diyaarinayna insha Allah hadii la iraado waana ka humahay in dadka qaarkood ganacsiga Soomaaliya in lagu ciyaaro oo dad maxaan kala iskarinayo ay si kala uga dansadaan Soomaaliya ama meelaha aan ka guuleysan waxa kamid ah ganacsiga Soomaaliya inuu guuleystay oo ku sharfanahay. al-shabaab waxay sanadihii ugu dambeeyay canshuur ka qaadayeen badeecadaha ka soo dega magaalada Muqdisho waxaana ay galaangal u yeesheen warqadaha xamuulka maraakiibta saaran iyo qiimaha badeecooyinka balse hadda waxay ganacsatadu ka walwal qabaan inay al-shabaab isku sii ballaarinayaan dhinacyada maamulka. waxaa jira isbedelo maamul iyo magacaabisyo dhowr oo la sheegay inay sameeyeen al-shabaab balse aanay VOA-du xaqiijin. waxaanu la hadalnay ganacsato kala duwan kuwaasoo noo sheegay xogo dhowr oo ku aadan saameynta ay hadda al-shabaab ku leedahay ganacsatada dhexdeeda sidoo kalena waxaa jirta cabsi weyn oo ganacsatadana ay ka qabaan in ay ka hadlaan arrimahan gaar ahaan canshuuraha iyo saameynta cusub ee kooxda al-shabaab oo hadda u muuqata mid ku sii fidaysa dhinacyada maamulka iyo gudiyada ganacsiga. gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliyeed Maxamuud Cabdikariin Gabayre ayaan mar kale weydiiyay bal haddii ay ganacsatadu ku heshiiyeen is-horfadhigoodii oo magacaabistan ay hadda isku raacsan yihiin. bil aadan boqolkiiba boqol lama qancin karo laakiin inta badan waa ay soo dhaweeyeen sababtoo ah
mar kasta oo rugta ganacsiga qaranka ay kulmayaan rugaha ganacsiga gobolada maamul goboleedyada waxaa mar kasta maqan kursigii rugta ganacsiga gobolka banaadir marka waxaan isku daynay in si consensa ay isu qanciyaan ganacsatadu oo guddi u saarnay mudday waleen 6 bilood loo fadhiyey aakhirkii waxaa ka dhashay marka anagoo markaas aan la kaashanayno ahla wal caqdiga ganacsiga gobolka banaadir helitaankeenaan inay nagu raacaan kadibna xaflad weyn loo sameeyey oo lagu soo dhaweeyey oo aan arki karta xafladaas sida ay tahay ganacsiga Soomaaliya ugu waaweyna ee Muqdisho ay ka qayb gashay soo dhaweynta xafladaas. qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir oo aanu la sheekaysanay ayaa VOA-da u xaqiijiyay in ganacsiyada qaar ay yihiin kuwa qaab monopoly ama u xiran dad gaar ah oo aanu qof walba ka ganacsan karin haddii ay dhacdana ay digniin uga imaanayso al-shabaab. mid ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir ayaa VOA-da u sheegay in gudoomiyaha cusub uusan ahayn nin horey ganacsiga ugu jiray oo aqoon weyn aanay u lahayn inkastoo kuwa kalena ay inoo sheegeen inuu dhinaca gaadiidka ka soo galay ganacsiga. waa kan mid ka mid ah ganacsatada gobolka Banaadir oo aanan magaciisa sheegaynin sababa xagga amniga ah codkiisana aanu bedelnay. ganacsiga ahaan maanta way ku waajiyado maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shabeellooyinka dareemi karo maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax badliga soo bandhigi kartaa ma jirto maanta kambani adiga aan leedahay inaad xayeysiiso waa ku samayso in ummadda ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo wax kaa gataan xataa ma jirto maalin alaalamaan dareemin kambanigaada hore u dhaqaaqaayo qola isuga ku daafan islamarkaana muhiimadaada keenayso inuu kambani weyn meeshaan kasoo socdo islamarkii waxaa ku kasbantaa adigan in lagaga yeero doorka welibana hadalkooda aad jiibta inta badan aad tagto in khaliil oo ilaahay subxaana watacaala ku xiran oo in nafsa ay dhacaysa infagin inta kaleeto maanta gobolka Banaadir waxaa moodaa nimanka inay si dhaba gacanta ugu hayaan xagga maamulka haddii xagga ciidan iyo xagga lalaasoowaay hore ay wada jiraan maanta ma ay wadaan maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraahdaan annaga idinka amreena qolo walbana dhaqangal waa warkeena iyo sababkiisa daba celin. gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdulaahi Xasan ayaan dhowr su'aalood ka weydiiyey hanaanka magacaabistiisa ay ku timid ganacsigiisa iyo waxa ka jira in al-shabaab ay amreen in isaga xilkaasi loo magacaabo. waraysigan oo koobnaa waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku timid magacaabistiisa maadaama muddo la isku mari lahaa in booskaasi la buuxiyo. aad baa u mahadsan tahay aniga magacaabistii waxay ku timid qaab oo doorasho gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka gudoomiyaha rugta ganacsiga qaranka Soomaaliya ayaa magacaabay magacaabistaas tala dheer ay ku timid oo ganacsatada gobolka Banaadir iyo ganacsatada kale Soomaaliyeed loo sameeyey waa tashigii sidaas ayaan ku imid kaligeena lama magacaabin waxaan la magacaabanahay gudoomiye ku-xigeen labaad mid saddexaad shaqayadeed maaliyad 6daas ayaan tiim ka nahay oo naloo magacaabay arrinta gobolka Banaadir sidaasaan ogahay sidaasaan ku magacaabanahay wax intaa ka dheeriya ma ogi. dad ganacsato ah waxa ay sheegeen in magacaabistaada ay ka dambeysay kadib markii ururka al-shabaab uu amar ku siiyey gudoomiyaha iyo dhinacyadii kale ishaystay in adiga lagu soo magacaabo ma jirtaa taas? maya waxaan ka ogahay ma jiro arrinkaas maya. goormaad kusoo biirtay ganacsiga? waxaan kusoo biiray xilli aada u fog 96 kusoo biiray ganacsiga reer Bakaareedaan ahay intaa Bakaaraan dhex joogay xagogaal badan aan ahay suuqleeyaan ahay business aan ahay waa sidaas arrinteeda. waxaa la sheegay in xilliga loo yeerayo oo magacaabistaada lagu amraayo aad joogto Xaradheer aad ka mid tahay ganacsatada dhinaca gaadiidka ka yimid isla markaana gacanta weyn ka geystay in al-shabaabku ay canshuur ka qaadaan dekedda magaalada Muqdisho ma jirtaa taas? maya. marka maxaa isleedahay hadda ganacsigii oo saas u kala qaybsan tuhunkaa soo jira sidee hawshaada u qabsan? aniga shaqadeyda waana qabsanaa insha Allah. haddana shaqooyin badanaa jira oo practical aan kuusisi karo aan qabtay cidid wax kale oguna iyada la imaan doonta ka rog ahaan qaran ahaan iyo ka dowlad ahaanna wixii rool aan ku leenahay inaan la shaqeynaan diyaar u nahay waana la shaqeynaynaa annaguna hadda loo kala nahay oo gobolaan nahay heer gobolaan ku shaqey doona insha Allah
heer qaranna waa naga sii koreeyaan, anaga shaqadana waa sidaas. marka muxuu yahay ganacsiga aad ku jiri jirto muddadaas oo aad haddana uga mid tahay ama guddoomiyaha aada ugu noqotay ganacsiga gobolka banaadir? aniga shaqo badan aan ku leeyahay, waxaase ka fiicnaa lahay haddii si xafiis ku leedahay in xafiiskiina aada nagu soo bartaan oonistaaidintusnaan aada u codsalahay insha allah. wasaaradda ganacsiga oo iyadu qaabilsan arrimaha ganacsiga iyo horumarinta ganacsiga ayaan arrintani wax ka weydiinay, waxaana ay wasaaraddu inoogu sheegtay qoraal kooban oo ay noo soo dirtay in aysan la socon wasaaraddu arrintaasi. xog intaasii dhaafsiisan wasaaraddu nama siin, mana naga ogolaan in aanu ka waraysanno arrintaasi wasiirka. marka laga soo tago duqeymaha dhanka cirka ee ka dhanka al-shabaab, ma jira dagaal toos oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom hadda kula jiraan oo dhinaca dhulka ah, waxaana dad badan oo arrimaha ammaanka faaqidaahi ay sheegayaan in ay sababtaasi u tahay in al-shabaab ay dhex gasho hay-adaha dowladda iyo kuwa bulshada, islamarkaana ay saameyn ku yeeshaan, sida uu qabo taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Cabdulaahi Maxamed Sanbalulshe. magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya aad ayaa loo hadalhayay in shabaabku markii horeeto ay ku xooganaayeen meelaha reermiyiga ah ama magaalooyin ka baxsan. focuskana markii hore ama ay dowladda ay saari jireen garsoorka iyo canshuuraha inay ka qaataan dadka baada ah si dadban oo aan toos ahayn. hadda waxay muuqataa marka authoritygoodii ama awoodoodii dadbaneed inay formal ka dhigaan, ay rasmi ka dhigaan. awal informal ay ahaan jirtay. sida maalmahan la sheegayo waxaaba la sheegayaa meelaha qaarkood in ay si toosa dadka ay ugu soo magacaawdeen ama talatooda lagu magacaabay. laakiin daradu waxay tahay in la leeyahay dawladdu arrinkaas way ka warqabtaa oo arrinkaas arrin baaha waaye, ama haddaysan ka warqabin indhaha ay ka qabsanaysaa. marka berigii horeeta waa la socotaayo magaalada muqdisho qaraxyo waaweyn hoteelada iyo meelaha ganacsiga bay ku jireen. hadda haddii wixii dadkii sababta loo qarxi jiray kasokow in marmarsiyaha ama qiilka qaraxaas uu ahaa in ay goobo dawladda ay ka talisay ay ku yaalaan ama saraakiil dawladdahu ay ku jiraan, laakiin inta badan qaraxa iyo weerarada waxay salka ku hayeen dadkaas oo diidan baada iyo canshuurta al-shabaab raba inay ka qaadaan, iyo shabaab oo rabo dadkaas inay ku dirqiyaan, ku sanduleeyaan, ku qasbaan. aakhirkiina haddii dadkii wax difaaca la waayey, dawlad difaacada la waayey, wixiina ay soo tarayaan marnaba ay si joogsan dadkii inay inti daalaan ay iska aqbaleen dimandkii ama dalabaadkii al-shabaab. yani si dadku uu isku qasbi jiray, hadda waxaa muuqata in la aqbalay, dadkiina ay ka quusteen in dawladdu ay dafiid garayn karto, cid hadda u jihayn karta in hadda ay ku jihaynayso dadkiina shabaab ma jirto. dadkuna bacdima dagaaladu ay daba dheeraadeen oo dhibaato fara badan ay dhacday, waxyaabaha danta guuda waa iska dhaafeen mararka qaarkood asaga keligiis inuu badbaado. guddoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga gobolka banaadir Axmed Cabdulaahi Xasan ayaa waxa uu isniintii dhoweyd la kulmay guddoomiyaha gobolka banaadir Cumar Maxamuud Cumar Filish. kulankaasi ayaa waxaa ku weheliyey qaar ka mida ku-xigeenadiisa iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed. guddoomiye Cumar Filish ayaan weydiiyey bal waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo sida uu arko eedaha sheegaya in al-shabaab ay soo gudbiyeen guddoomiyaha cusub si xilkaasi loogu magacaabo. waa dhab waa la kulanay ganacsatada Soomaaliyeed iyo ganacsatada gobolka banaadir guddigooda cusub. anagu ma aqoonin ganacsatada gobolka banaadir oo way cusubahayeen, balse waxaa iskaga baray guddiga ganacsatada Soomaaliyeed oo guddoomiyahooda iyo ku-xigeenkiisa oo maalmo ka hor ii sheegay in la sameeyey barta ama rugta ganacsiga gobolka banaadir, islamarkaas inay iskaga bari doonaan ay ii sheegeen. waxay ahayd marka isbartii ayay ahayd isniinta kulankaasu. marka shaksiyad aan qaarkood garanayo qaarna aanan garanayn ayay ka koobnaayeen rugta ganacsiga gobolka banaadir xubnaha lagu magacaabay. marka kuwan garanayay Ibrahim Shaamul waa kamid ahaa oo hotel Shaamul iska leh. guddoomiyaha aqoonin ninka lagu magacaabay
marka intaasaan ka sheegi karaa. gudoomiye Cumar Filish ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ay u taalo inay baaraan arrinka balse isagu uusan rumayn karin isla markaana beenayn karin in gudoomiyaha la magacaabay ee rugta ganacsiga gobolka Banaadir uu xiriir la leeyahay al-shabaab. aniga yani wana tiidaro taasu waxaan anagu ogeyn ama xogaho aan ka helin ma jirin marka dhihi karno waa shabaab mana dhihi karno shabaab marka hay-adaha shaqada leh howlahaas ayay u talaa. mid ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho ayaa VOA-da u sheegay in ay ka ganacsato ahaan walaac weyn ka qabaan awoodda sii ballaaranaysa ee al-shabaab ee dhinaca maamulka ganacsiga iyo weliba canshuuraha. ganacsadahan oo magaciisa aanu qarinno codkiisana aanu bedelnay ayaa yiri ka ganacsato ahaan maanta weelku waa ziyaado maanta qofkii gobolka Banaadir ku nool iyo shabeellooyinka dareemi karo maanta ganacsiga iyo xornimo iyo maanta wax badliga soo bandhigi kartaa ma jirto maanta kambani adiga ah inaa xayeysiiso waa ku samayso in ummadda ku aqoonsato oo wax kula macaamilaan oo wax kaa gataan xataa ma jirto maalin alaalamaan dareemin kambanigaada hore u dhaqaaqaayo qola isagoo ku daadsan islamarkii in muhiimadaada keenayso inuu kambani weyn meeshaan kasoo socdo isla markii waxaa ku kasbantaa adigan in lagaadi yeero doorka welibana hadalkooda aa jiibta inta badan aa tagto in khaliil oo ilaahay subxaana watacaala ku xiran oo ka nafsa ay dhacaysa intagin inta kaleeto maanta gobolka Banaadir waxaa moodaa nimanka inay si dhaba gacan kugu hayaan xagga maamulka haddii xagga ciidan iyo xag kale la joogaayii hore ay wadi jireen maanta ma ay wadaan maanta waxa ay wadaan xag maamul weliba maamulka inay dadka yiraahdaan annaga idinka amreena qolo walbana dhaqangal waa warkeena iyo warkiisa dare ismarwaaga iyo khilaafaadka siyaasadeed ee dalka ka jira ayaa dadka qaarkiis u arkaan inay fursad u siiso al-shabaab inay ballaariso saameynteeda waxaana taliyihii hore ee nabad sugidda qaranka uu qabaa in dagaalka ka dhanka ah al-shabaab dhinac looga soo wada jeesto si loo wiiqo saameynta fidaysa ee al-shabaab. after all hadda sideedaba waxay tahay shabaabka waa cadow horta in laga adkaado unbaa wax looga qaban karaa in lala dagaalo unbaa wax looga qaban karaa in kulligeen hadda annaga unbaa isku muuqana ayagu noo muuqdaan inay ayaga cadowkoo yihiin inay cadowga koowaad yihiin dadka oo dhan go-aan dawladeed ay tahay go-aan umadeed ay tahay go-aan shaksi ay tahay oo si dhaba loogu soo jeesto aragtidkooda iyo la dagaalankooda oo dagaalkooda waa luusluuso waa jilicsan yahay horta la xoojiyo waa la muraan doctrinka ama mindsetka dawladda iyo shacabka iyo siyaasiyiinta ay ku wajahaan shabaabna waa in la bedelo oo dadkaana waa kansar waa cudub dad marnaba la aqbali karo nala noolaan karo ma ahan annaga haddaan rabnaa isku soo jeesina horta ayaga waa inaan ku jeesano marka motivationkooduna ama dhiirigelintooda ama diiladoodana hoos u dhici mayso anla capabilitygooda ama awoodooda military la wiiqo marka hadda xilli oo laga shaqayn karo dawladda la joogto xilli focuska la saari karo in military ahaan la wiiqo oo goobaha ay joogaan loogu tago oo maxaan ku dhahaa yani awoodooda military hoos loo dhigo kadibna midooda dhaqaale iyo tooda maxaan ku dhahaa dhexgal iyo tooda dadka ay qoranayaan iyo tooda dadka iyo ayaga aqbalaada ka dhexaysa ayaa yaraanta. dad badan oo arrimaha al-shabaab si dhow ula socda ayaa qaba in inkastoo ay muuqan karto in saameyntii al-shabaab ay sii ballaaranayso haddana in al-shabaab lafteeda ay ka soo gudubtay xayndaabkii diinta ee ahayd in ay yihiin kooxo u dagaalamaya difaaca islaamka waxaana ay hadda noqonayaan kuwo dhaqaale iyo awood raadis ah waxaana ay dadka qaar guul u arkaan in fakarkii xagjirnimada ay islaamka ku gambanayeen al-shabaab uu hadda u soo xuub siibtay mid dhaqaale doon ah waxaana ay sheegeen in ay hadda kadib adkaan doonto in ay helaan dhallinyaro dambe oo ay fakar diiniya ku soo jiitaan.